warbaahinta Aljazeera ayaa afka Carabiga ku qortay maqaal dheer oo ay ciwaan uga dhigtay Soomaaliya dalka gargaarka u diri jiray Sacuudi Carabiya. waxaa maqaalkan qoray Mucaad Maxamed Alxaaji Axmed oo ah qoraa Carbeed oo u dhashay dhulka Falastiiniyiinta. maqaalka waxa uu ku bilaabanayaa sharaxaad ku aadan xaaladda Soomaaliya ee maanta. waxa uu leeyahay waxa laga maqlo dalkaasi haatanaya burcad badeed, hogaamiye kooxeed, kooxo hubaysan iyo dambiiliyaal hubaysan oo way adag tahay in maanta wax wanaagsan ay maqlaan dhagaha dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan kuwa dunida. qoraaga waxa uu sheegay in inkastoo horumar la taaban karo uu jiro, haddana waxa weli maskaxda dunida ku qunfulan dhibaatada Soomaaliya oo intooda badan Soomaaliya tusaale ahaan u soo qaata dadka dunida marka ay kaga digayaan in dal kale uu qaado wadada burburka. balse Soomaaliyada maanta wareersan ee kala tagtay dhiiga qabyaalada dhexda baalatay weligeeda sidan ma ahaan jirin. xornimadii kadib Soomaaliya waxaa loogu yeeri jiray Switzerland Afrika maxaa yeelay dadkeeda waxay lahaayeen xoolo badan iyo beero wax soo saar fiican leh. qoraaga waxa uu leeyahay Soomaaliya waxay hormuud u ahayd dimuqraadiyadda iyo awoodda si nabad ah la isugu wareejiyo wixii ka horreeyay afgambigii Siyaad Barre ee dhacay 1969kii. qoraaga waxa uu sheegay in xilligii ay dhibaatada badan jirtay dhulka muslimiinta qofkii lagu badbaaday oo ahaa hogaamiyihii boqortooyada cadaaladda Axmed Ibraahim oo Soomaalida u taqaan Axmed Gurey. wuxuu qabriga nabiga ka difaacay isbahaysi ka dhaxeeyay Xabashida iyo Boortaqiiska kuwaas oo doonayay inay qabsadaan magaalada Madiina, sidoo kalena doonayay inay qaataan qabrigii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee si ay ugu gorgortamaan magaalada Qudus oo ay muslimiinta haysteen. ugu dambeyntii Axmed Gurey waxa uu suurta gashay inuu ku guuleysto inuu dilo hogaamiyihii Boortaqiiska Vasco da Gama. maqaalka wuxuu soo xigtay qoraaga taariikhda ee Cabdulqaadir bin Cabdalla Caydaruus oo sheegay in Axmed Gurey uu markii dambe gaaray guulo waaweyn oo magaalooyin badan kaga furtay Xabashida. maqaalka waxa kale uu sheegayaa in guulaha uu gaaray Axmed Gurey ay la mid yihiin kuwii la gaaray xilligii saxaabada. qoraaga ayaa waxa uu sheegay in nuxurka maqaalkiisa uu yahay in Soomaalida maanta sidan ay ahaan jireen dad hodan ah oo Sacuudiga gaarsiiyay gargaar, inkastoo uu sheegay in dadka qaar ay doonayaan inay arrintaasi dafiraan. qoraaga waxa uu sheegay in intaan la helin batroolka Sacuudiga uu ahaa dal faqiir ah, dadkiisana waxay ku noolaayeen timir iyo caano oo keliya. waxaana taariikhda ku cad in abaar ballaaran ay ku dhufatay Sacuudiga sanadkii 1909kii. waxay dadka cuni jireen calaynta si ay noloshooda u badbaadiyaan. xilligaasi Soomaalida aad ay qani u ahaayeen oo xitaa waxaa la wariyaa in qofku intuu neef qasho uu beerka kaliya ka cuni jiray inta kalena uu tuuri jiray. taariikhdu waxay qoraysaa in culimada Soomaalida ay xilligaasi fadwoodeen in xoolo sadaqo ah loo diro dadka Sacuudiga. waxaana xigtay in ganacsada Soomaalida ah ay bilaabeen inay halkaasi u raraan xoolo nool, raashin iyo xitaa dahab. Soomaaliya maanta waxay ku sugan tahay xaalad aan wanaagsanayn. waxay ahaan jirtay dimuqraadiyadda aan xusuusta ka bixi karin, maantana waxay noqotay maamulo yaryar oo kala tagan. waxay horey u ahaan jirtay aag cagaar ah oo leh doomo dunida oo dhan u kala goosha oo kaalmo gaarsiiya. hase yeeshee hadda waxay noqotay dal ay ka jirto gaajo iyo rafaad, balse taariikhda aanan la hilmaami karin. ay warbaahinta Aljazeera ku soo gabagabaysay maqaalkan ay ku daabacday warbaahinteeda oo uu qoray qoraaga Falastiiniga ah ee Mucaad Maxamed Alxaaji Axmed.